bishan markay ay kala baranto habeenka niska ay tahay waxaa dhacda arrin weyn arrin cajiib ah xagga rabbi ka timi tabaaraka wa tacaala maxay tahay arrintaas wuxuu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh habeenka bisha shacbaan ay kala barantoy nis noqoto habeenkaas allah baa wuxuu daalacdaa addoommadiisa dhammaantood intuu abuurtay oo dhan buu daalacdaa markuu daalacda kadibna wuxuu u dembi dhaafaa dhammaantood dembigooda waa saamaxaa ilaa 2 ruux mooye ruux mushrik ah oo ilaahay iyo addoommadiisa ka dhaxaysiiyey wixii ilaahay gooni u lahaa xaqii alla gooni u lahaa oo cibaadadiisa ah oo tawxiidkiisa oo keliyeelidiisa ah ninkii wadaajin galay oo ilaahay iyo addoommadiisa ka dhaxaysiiyey kaasi ilaahay marna u dembi dhaafi maayo waa tan qur-aanku tilmaamayo inna allaha laa yakfiru an yushraka bih alla ma dhaafo in isaga iyo addoommadiisa wax la wadaajiyo laysugu daro ilaahay khalqigiisa waxa uu goonida ah inaad u leexiso waa dembi ilaahay laga galo ka ugu weyn adduunkana wuxuu keenayaa inaan dembigaaga haba yaraatee la saamixin aakharana wuxuu keenayaa inay jannadu xaaraan ka tahay naarna aad ku waarayso saas daraadeed mushrik ilaahay habeenkaa u dembi dhaafi maayo ka labaadeen loo dembi dhaafayni waxa weeyaan waa mushaaxin waa cuqdadlow waa xiqdile ruux xiqdi iyo nacayb qalbiga ugu haya ruux muslim ah asagana loo dhaafi maayo waa cajiib mushrika garanaya kan uurka ka jiran ee muslimiinta colaada u haya ama xiqdiga u haya ama u xanaaqsan maxaa lagu maagay sababtu wax weeyaan u fiirso meesha la geeyey isaga iyo mushrigii baa la isgarab dhigay waa la fogeeyey waxaan meesha ka fahmaynaa ilaahay tabaaraka wa tacaala dembiyada laga galo kuwa ugu waaweyn waxaa ka mida inuu qalbigaagu jiran yahay oo u jiran yahay dadka ilaahay addoommadiisa ee mu'miniinta ee muslimiinta ah waad nacab tahay xiqdi baad u haysaa xasad baa kugu jira nacayb baa kugu jira waa wixii ilaahay diiday tabaaraka wa tacaala meesha keliyana ma ahe munaasabaad fara badan xiqdiga iyo caloolxumada kugu jirteed muslimka u hayso waxay keenaysaa meelo fara badan inaad ilaahay naxariistiisa ka qado dembi dhaafkiisa ka qado halis u gasho rabbi cadaabkiisa iyo cuquubadiisa tabaaraka wa tacaala waxaa nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu yidhi maalin kasta oo khamiisa iyo maalin kastaoo isniin ah acmaasha addoommada kor loo qaadaa ilaahay baa acmaasha loo geeyaa markaasaa ilaahay wuxuu u dembi dhaafaa cid kastoo addoommadiisa ka mida ilaa cid mushrigoo ilaahay iyo addoommadiisa xaqii alle ka dhaxaysiiyey mooye yaa kale nin kalaas isagana aan loo dhaafayninoo maalinkaasi isagana aan khamiista iyo jumcada marka acmaasha la qaaday aan loo dembi dhaafaynin waa kee wuxuu nabigu sal lla alay wasalam waa ruuxa isaga iyo walaalkiisa muslimka ay ka dhaxaysa shaxnaa xiqdi uu ka dhaxeeyo alla wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala labadan xiqdiga iyo xumaanta isu haya dibdhiga arrinkooda u kaadiya ilaa ay ka soo heshiiyaan meelo badan baad qadi marka lianna ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ugu jecel yahay acmaasha wuxuu ugu jecel yahay waxaa ka mida in qalbigaagu saliim yahay qalbigaagu fayow yahay qalbigaagu xaadhan yahay dadka muslimiinta wada jecesha xumaan aadan qalbiga ugu haynin qalbigaagu inuu u fayow yahay nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayaa waxaa la weydiiyey dadka yaa ugu fadli badan rasuul ilaahayow
wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ruux kasto oo mahmuumul qalbi asaduqul lisan qalbigiisu mahmuum yahay carabkiisuna run badan yahay waxay yiraahdeen garanay midka carabkiisu run badan yahay qalbigiisa mahmuuma maxaa laga wadaa maana fahmin oo cadde wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa laga wadaa huwa at-taqiyyun naqiy wa midka qalbigiisa alla ka cabsi ku jiro qalbigiisuna daahir yahay oo nadiif yahay واسي وذا النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu yiri waa midka qalbigiisa aan dambi ku jirin gardarro iyo xadgudub iyo dulmi ku jirin dhilli iyo khiyaana ayna ku jirin xasad uusan qalbigiisa ku jirin kaasa ilaahay adoomada ilaahay ugu fadli badan uguna jecel yahay saas daraadeed hadaad qalbiga xumaan ku hayso xaaladahaasi iyo waqtiyadaasi munaasabka qiimaha badan ee laysa saamaxaya waa laga reebi waad ka hadhaysaa waa inaad marka qalbigaaga nadiifiso oo aad daahiriso oo aad ka dhigto qalbi saliim oo fayow nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi saddex bari oo isku xigtay buu saxaabadiisa uu la fadhiyo wuxuu ku yiri waxa idin soo gali doona nin ahlu janna ah saddexdii bari ba hal nin baa soo galay ninkii haday daba galeen saxaabadu ay fiiriyeen warninkan saddex bari janna looga marqaati kacay xaalkiisu muxuu ah haday raadiyeen waxa cadaatay ninkaasi cibaado badan oo uu ragga la dheer yahay ma jirin soom badan iyo salaad badan iyo cibaadaad oo saxaabada kale la dheer yahay ma soo bixin laakiin maxaa la helay waxa la helay oo uu sheegay hal habeen ama seexanin anigoo qalbigayga ruux muslima xumaan ugu haya waa midda uu meesha ku gaadhay waay sidaas daraadeed hadaad ilaahay dambi dhaafkiisa rabto iyo acmaashaada in meel fiican la geeyo qalbigaaga ka shaqeeyo hagaaji xiqdiga iyo xasadka iyo xumaanta iska saaro iska nadiif Allah tabaaraka wa ta'ala mu'miniinta markuu tilmaamay saddex qaybood buu ka dhigay fi suurati al-hashr qaar waa muhaajiriin qaarna waa ansaar qaarna waa qolada saddexaad oo tilmaantan la siiyo walladina jaa'u min ba'dihim labada gadaashooda kuwa yimid ee muuminiinta damba ah ee dib ka yimid yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iiman waxay dhahayaan rabbiga noo dambi dhaaf annaga iyo walaalahanagii nooga horeeyay iimaanka noo dambi dhaaf wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina aamanu qalbiga naga allah xiqdi ha gelinin xiqdi aanu hayno dadka muuminiinta ilaahu qalbiga ha naga gelin marka xiqdi haduu qalbigaaga haysto dib kugu filani waa ku hayaa dib in kugu filani waa ku haysataa aimada salafka ridwaanullaahi calayhim qaar kamida waxay ku fasireen xadiidkaas uu nabigu sallallahu alayhi wasallam habeenka shacbaan ay kala baranto ilaahay waa u dambi dhaafaa adoomadiisa ilaa mushrik iyo mushaahin mooyee aimada salafka qaar kamida waxay ku fasireen mushaahinka waxa laga wadaa waa ninka saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam uqdada iyo nacaybka u haya sida imaam awzaa'i alayhi rahmatullah ku fasiray waxaan shaki ku jirin xiqdiga kugu jira dadka aad u hayso sida ay ilaahay ugu kala dhow yihiin buu dambigu u kala weyn yahay dad xiqdi iyo xasad iyo nacayb loo qaado waxa ugu daran uguna dambi weyn saxaabadii nabiga sallallahu rabbi wa sallallahu alayhi lianna waxay ahaayeen awliyadii ilaahay doortay ummadda nabi maxamed ka xushay saabiqiintii bay ahaayeen ardadii nabi maxamed bay ahaayeen kuwii quraanka iyo sunnadaba lagu amaanay lagu taskiyay bay ahaayeen kuwa markaad xaqdi iyo xasad u qaado shaki ma laha hadaadan gaal ahayn ina dambiile xaq aad uga fogeynata maayeel ilaahi tabaaraka wa taala quraanka kariimka wuxuu ku sheegay markuu ka hadlay saxaabadii nabiga iyo siday nabiga u garab istaageen u xoojiyeen ay dhinacyaha uga galeen oo diinta u xoojiyeen allah wuxuu yiri tabaaraka wa taala liyaghiidha bihimul kuffar gaalada in lagaga xanaajiyo oo ciil la bado daraadeed buu allah saa u yeelay ninka xanaaqsan ee ciilkiya cadhada u haya saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam
aayadda waxa laga qaadanayaa inuusan muslim ahayn aymadii salafka qaar kamidana saa u daliishada ridwaanullaahi calayhim sidaas daraadeed saxaabada inaad cuqdo u qaadaay mas'ala sahlan ma aha cuqdada iyo xiqdiga la qaadato ugu culus waay waxa soo raaca aymadii salafka ridwaanullaahi calayhim ardadii saxaabada taabiciintii kuwii ka dambeeyay aymadii saddexdii qarni culimada muslimiinta ee sunnada u taagan ee diinta faafinaya kuwaasa ugu daran inaad xiqdi iyo cuqdad u qaado dadka kale muslimiinta guud ahaan ayaguna waa soo galayaan maxay ilaa nabigu ma kala qaadinta salawaatu rabbi wa salaamu alayhi laakiin way sii kala culus tahay saas daraadeed xiqdiga shiicada iyo raafidadu ayda ay saxaabadii nabiga caayayaan xiqdiga ay u qabaan colaada ay u qabaan nacaybka ay u qabaan ayagiyo inta raacsanba shaki malaha in ay galayaan xadiidka nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi fayaghfiru li jamii'i khalqihi illa limushrikin aw mushahin dad ilaahay doortay markaad adigu ku mashquulsho shaqo ka dhigato ya man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb bu Allah yiri tabaaraka wa ta'ala awliyadayda ruuxi la colaytama aniga dagaal u cilaamiyay ha ku tala gala dagaalkayga saxaabadii nabiga ninka ku mashquulsan ee laga kari laayahay dagaal rabbi tabaaraka wa ta'ala ayuu ku jira nin ilaahay dagaal la galayna shaki malaha inuusan marnaba reynaynin oo laga adkaanayo oo ilaahay tabaaraka wa ta'ala adduuniya aakhiraba uu ciqaabahayo uqubada rabbi iyo cadaabkiisa inuu halis ugu jiro muslimiintu marka ha ka nabad galeen qalbigaagana u fur يا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سلوكو قدام بدافع وضنت هذه مصلحة هذه عافيتك سامح والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذا علي سنتور نبقى دريمة يسقر صدب كاغا عرض هذا علي ذاتك ليسك سامح وعافي ألا تحبون أن يغفر الله لكم يا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه مركو كحناقي ننكي مصطح بن أثاثة يا مركو كحناقي وعائشة دتكي كبين أبورتي كقيب قلي وبين تفافيين أبورتك كدبنا أويري دب دنب إنانا مصروفين قرابي أهايا إلهي آيات نزودك تبارك وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ورمي إذا انشعلين إن إلهي إذين دافو إذين سامعوا جوابتوا ها وانشعلناها إلهي أدوم إذين سامحا عفية قلبك أفرا ونصيحية مسلمين تشعلوا متك قلوا عسنة دنبك كلي دنبك يسنع لكن يسقها النعل يا دنبك أهواذا حمانتا لفتيدا لنعا لكن شخصك مسلم كان لما نعو لما نكهضه لفيه سوى الروح مسلم عاصبها هذا سيداس درادد دنها الدنيا دقالك كصاب سني ملكو قين ماي حقابا إذن دحمري صح هذه الشحناقة أضوها يسويها الروحاني يعني فكرك أو حنبارسيني ما وحو فكر خربا دين أهم بعد وجه هجرته وحو وتي مبدئ إيسا خلدا تاسوا مسألة كله لكن واحد ضد قال سنتود وحنا سنتود ونعبتها والدنيا كرسي با إذن دحمري حولا إذن دحمري وحوقا با إذن دحمري تاميا شحناقة نوعا سلما أقولا سأسترادي سي أنشانس كان يوقفا إذي سنة وهبين ندن إنو قسو آدم ويبش شعبان إن النس نقطه وهبين ندن إنو قسو آدم قلبك وقتك يرى الله وانت تكشقيسيسو ظاهري ونظيف إن شاء الله تعالى سي إلهي قلبك أضال عضو كدبنا اللي قدام بدافع بإذن الله تبارك وتعالى أضغم من نقطه ضدك الله سامح يهبينك بإذن